كل ونكسن غيرتنا لا سعوتاي meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 3 bisha Maars sanadka 2026 janalka cusub ee Barrow ayaa daawanaysaan waxaan si toos ah ugu guda jirnaa tabinta wararka xasaasiga ah ee dagaalka gobolka Bariga Dhexe ka waran hadii aan ku iraado dawladda Mareykanku waxay u muuqanaysaa in fagaaraha dagaalka ay wax badan ku luminayso halka dalka Iran uu gaarayo guulo istiraatiiji ah sidaasi waxaa sheegay sargaal sare oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda muqaabaraadka dibadda ee dalka Mareykanka kaas oo tilmaamay in madaxweyne Trump shalow looga digayo in uu ku dhaco in hadda uu wajahayo taas oo muujinaysa in mustaqbalka dagaalka gobolka Bariga Dhexe uusan u wanaagsanayn dawladda Mareykanka Trump oo hadlana waxa uu yiri hadii aanan qaadi lahayn weerarka isla markaana aan hore uga bixi lahayn heshiiskii nuclearka ee dawladda Barack Obama ay la gashay Iran dalka Iran maanta waxa uu noqon lahaa mid kamid ah wadamada ku hubeysan nuclearka oo aan waxba laga qaban karin waliba isagoo sheegay in dictator uu gacanta ugu jiray wadankaasi sida daraadeed amniga qowmiga ah ee Mareykanka oo la badbaadinayo ay talaabadan u qaadeen magaalada Dahraan ee caasimadda wadanka Iran waxa ka dhacaya duqeyn xoog leh iyadoo meelaha la duqeeyo ay kamid yihiin telefishinka wakaalada wararka ee tasniim ee dawladda u janjeerta dhinaceedana waxay leedahay meel la reebay ma jirto oo cardaadiqada ayaa gantaala looga dhigay iyo diyaaradaha dagaalka Mareykanka dhinac kasta oo kamid ah magaaladaasi bogga ayaa dhulka lagu hayaa ayay leedahay wakaaladaasi tasniim oo shacabku waa walaacayaan dhinaca kale markii aan fiirino dawladda Jordan afhayeen u hadlay militariga wadankaasi waxa uu leeyahay waxaa muuqanaya qaar kamid ah warbaahinta waaweyn ee adduunka in ay inagu soo riixayaan dhaliilo aynan qaadi karin mustaqbalka taas oo la xiriirta in dalka Jordan laga weeraray gudaha wadanka Ciraaq boqolaal shicib ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee Karbala Qum iyo Baghdad oo Ciraaq ka tirsan kuwaas oo codsanaya in loo aaro Ayatollah Ali Khamenei oo lagu dilay weerarkii ka dhacay gudaha wadanka Iran 28 bishii aynu ka soo gudubnay February haddaba maxay doonayaan dadkaasi yeesa ka codsanayaan in tillaabooyinkaasi la qaado warbaan idin haya Israel waxay hadda waan idin hadlayay soo saartay digniin istaba jooga waxay leedahay 30 magaalo oo ama 30 tuulo oo ka tirsan Lebanon hal baneeyo duqeymo ayaan halkaasi ka sameyn doonaa maxay halkaasi ku tuhmayaan dhinaca kale waxay soo jeediyeen qaybo ka tirsan Dahraan in ay goor dhow u shidi doonaan cabsi oo ay gantaala dhinac kasta uga soo tuurayaan caawa gobolka Bariga Dhexe meel siraadan maaha oo waxa ka taagan duqeyn iyo cabsi hor leh carabtu waxay leeyihiin waa in la raadiyaa fursado dawladda Iran digniin ayay u soo jeedisay maraakiibta maraya gacanka Hormuz Mareykanka ciidamadiisii Spain joogay ayuu u soo rarayaa gobolka Bariga Dhexe si xiisada halkaasi ka taagan xal loogu helo qodobadaasi ayaan dul mari doonaa oo aan idin la socodsiin doonaa faahfaahinta haddii aad igala socoto YouTube-ka Cabdicasiis Barrow qaybta hoose ee commentiga ayaan soo dhigayaa linkiga oo janalka cusub ee Barrow Show ayaan geyn doonaa faahfaahintan waliba sargaalka muqaabaraadka ka tirsan warka uu leeyahay waa mid xasaasi ah halkaas ayaad ka soo ogaan doontaa hoos u deg janalka ku dhufo subscribe saar isla markaana xogta halkaasi ka qaado commentiga share-ka iyo like-tana xaqina ayaan u daynayaa aad ma santiin hadii aad Facebook nagala socoto followina soo dhe hadii aad channelka weyn ee Cabdicasiis Barrow nagala socoto subscribe dhe ma santiin dhamaantiinba ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heega kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar dalka Mareykanka qaar kamid ah qubarada arrimaha ka soo shaqeeya sirdoonka iyo amniga waxay leeyihiin Trump waxa uu cagaha u galiyay dagaal aan laga waaqsan karin lana ogeyn waqtiga iyo goorta uu dhamaan karo marka la fiiriyana waxa bixi doona kaydka hubka rasaasta iyo waliba qalabka tiknoolajiyada ee wadankaasi sidaas waxa la Scott Ritter oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda muqaabaraadka dibadda Mareykanka ee CIA-da loo yaqaano telefishinka Al Jazeera oo waraysi ka qaaday ayaa ninkan waxa uu leeyahay Ritter la yiraahdo iyadoo telefishinka warbixin uu ka qoray leedahay sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka oo la yiraahdo Scott Ritter ayaa sheegay in weerarada ay Iran ku qaaday saldhigyada military ee Mareykanka ee gobolku ay muujinayaan
qalad weyn oo xisaabeed oo ay samaysay Washington oo ay ku lamaanan tahay buu yiri Tel Aviv waa Israa'iil ninkan hore uga soo shaqeeya hay'adaasi sirdoonku waxa uu leeyahay in ololihii militariga ee wada jirka ahaa ee Mareykanka iyo Israa'iil uusan gaarin ujeedooyinkii laga lahaa waxa uu leeyahay inkasta oo la dilo hogaamiyihii hore ee Iran aadkana u sareeya meeqaamka lahaa Ayatollah Ali Khamenei iyo waliba qobro kale oo la socotay haddana nidaamka talada haya ma uusan burburin sida ay rajaynayeen madaxweyne Donald Trump oo wixii la filayo waxa uu leeyahay waa kaaf iyo kala dheeri oo wadanka dilkii ninkaasi waxa uu ka qaaday isku tiirsanaan isaysasho iyo waliba shacabka dalka Iran inay isla socdaan sargaalkani hore waxa uu leeyahay halka shacabka Iran ay ka kici lahaayeen kana hor imaan lahaayeen dawladda iyo nidaamku waxay ku dhawaaqeen baroordi qaran waxa ay dalbadeen argoosi taas oo runtii nagu dhalisay buu leeyahay walaac waxa uu intaa ku daray in weerarada aysan joojin Iran oo barnaamijyadeeda gantaalaha Iran ay dhinac kasta oo gobolka ah ay si fiican u qaraacayaan taas oo marka lagu akhriyo buu leeyahay indhaha amniga iyo dagaalku ay noqdeen wax xanuun leh waxa uu xusay in jawaabta Iran ay ahayd mid lama filaan ah maadaama ay weerar ku qaaday Israa'iil qaar ka mid ah dalalka Carabtana ay u taagtay buu yiri waxyaabo xanuun badan oo dunida ay marqaati ka noqotay waxa inta dheer waxa ay weerareen buu yiri xarumo dhaqaale taasi oo dhalisay saameyn ballaaran oo ku timid amniga iyo dhaqaalaha gobolka arrintan waxay sidoo kale gelisay buu leeyahay awoodda Mareykanka difaac xulufadiisa gaar ahaan dalalkii khaliijka marka waxa uu leeyahay Mareykanku hadda waxay ka fakarayaan sidii dalalkan khaliijka iyo Carabta loo badbaadin lahaa dhinaca kale sargaalkan waxa uu leeyahay Mareykanku waxa uu wajahayaa caqabado military oo xoog leh marka la fiiriyo gobolka waxa uu ka digay in haddii dagaalku uu sii dheeraado madaxweyne Trump uu u baahan yahay in uu kordhiyo awoodda military ee Mareykanka ee gobolkaasi waxa uu sheegay qaar ka mid ah saraakiisha sarsare in ay uga digeen si socoshada dagaalka inay keeni karayso gabaabsi hub iyo qalab military ciidamada ku sugan ee gobolka waxana uu saadaaliyay in Iran ay si tartiib ah uga soo kaban doonto dagaalka halka Mareykankana uu ku sii dhici karayo shalow xoog leh oo ballaaran loona baahan yahay in si weyn looga feejignaado arrintan dhankiisa xogayaha sare ee amniga qaranka dalka Iran Ali Larijani ayaa sheegay in dalkiisa uusan u diyaar u yahay buu yiri dagaal muddo dheer sii socon kara qoraal uu ku baahiyay barta X ayaa waxa uu ku yiri in Iran ay dhigi doonto cadowgeeda casharo lama ilaawana oo ay ka shalaayi doonaan xisaab xirku waa adag yahay buu leeyahay halkay la filayay Mareykanka ay xisaabo qaldan ka saxeen oo hadda waxa haysa buu leeyahay sida uu hadalkiisa u dhigayo xisaab xilmale isla markaana madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in weeraro cusub oo ka dhana Iran uu qaadi doono isla markaana mowjado kale oo hor leh oo ballaaran ay soo socdaan taasi oo haatan muhiim u ah in laga fakaro sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale caawa dagaal xoogan iyo duqeymo ayaa ka soconaya dalka Iran waxa la duqeeyay magaalada Dahran saacadihii la soo dhaafay oo dhinac kasta gugaca iyo shanqarta madaafiicda ayaa laga maqlayaa meelaha ay u badan tahay in la bartilmaameedsado sida telefishinadu ay sheegayaan waxaa ka mid ah raadiyaha iyo telefishinka qaranka oo ah halka il ee dagaalka warbaahinta muuqata ay ka sameynayso dawladda Iran dhinaca kale wakaaladda wararka Tasnim ee dalka laga leeyahay waxa ay leedahay waxa la gaaray xilligii dagaalku uu sii xoogaysan lahaa dawladda Urdunna waxa ay afayeen u hadlay ciidamadeeda militariga uu leeyahay innaga wadankeena marnaba suuragal ma aha in laga abaabulo weeraro ballaaran oo lagu qaado qaybo ka mid ah wadamada Carabta si gaar ah waxa uu u beeniyay in wadanka Urdun laga weeraray gudaha wadanka Iraq madaxweyne Trumpna Barack Obama ayuu caawa eedda dagaalka oo dusha ka saaray waxa uu yiri waxaan ahay haliyay badbaadinaya shacabka Mareykanka iyo danihiisa gobolka bariga dhexe ee caalamka ninkii Barack Obama ahaa waxa uu faraha noo galiyay mucjiso ay ilaa iyo hadda la tacaalayna sidii aan u samayn lahaa waana heshiiskii nuclear-ka uu la galay dawladda Iran haddii aan aniga ahaa